لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محيا. بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه والآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي مدفر بدن إسكال مركلة iyo darsigeena ku saabsanaa الحقوق في الإسلام xuquuqda uu islaamku jideeyey dadka muslimiinta dhexdooda. waxaan xalqadii hore soo hadal qaadnay xaqa ay labada waalid ku leeyihiin ay ciyaalka ku leeyihiin xaqu al-aabaa'i cala al-abnaa. waxaan ka hadlay waalidka iyo sida ay waajib u tahay xuquuqdiisa in la ilaaliyo iyo in ilaahay loogu dhowaado. haddii xuquuqdaa la ilaaliyo inuu qofku ilaahay badbaadinayo, inuu raalli ka noqonayo, inuu ilaahay jannada gelinayo. hadduu xuquuqdaa waalidka ilaalin waayana inuu la mid yahay qof dembaabay. dembiga labaad ee qof galo shirkiga marka laga yimaado waa dembiga koobaad, waalidka waa lagu xumaadaay. waxaan maanta si gaara uga hadlaynaa waalidka, waalidada mid ka mida oo hooyada ah. xaqa ay hooyadu ku leedahay ay ilmaheeda ay ku leedahay. ilaahay baa wuxuu yihi wawasayna alinsaana biwaalidayhi, waxaan u dardaaranay bini aadanka labadiisa waalid ayaan u dardaaranay. hooyadii waxay caloosha ku siday iyadoo itaal daran oo dhibaataysan oo tiifta ay ku taallo ayaa muxuu ahaa aan bini aadanka ay caloosha hooyo ku qaaday. intaa waxa u dheer inta caloosha ku siday waxaa u dheer dhibtii kale ee daryeelkiisii markuu dhashay, naaska nuujinaysay iyo daryeelkiisii iyo wixii ay lahayd oo dhan ay isaga daraaddii ay muxuu ahaa hooyadaas dhibaato usoo mutaysatay. haddaba si gaara ayaan maanta waxaan u eegaynaa waalidka wuxuu ku leeyahay xuquuqda ilmaha, gaar ahaana hooyada ay ku leedahay. xaqa waalidku ku leeyahay, labada waalid ku leeyihiin ilmaha afar marka loo qaybiyo, 3 qaybood hooyadaa leh, qaybna ayaa aabbaha ayaa leh. taas waxay ku tusinaysaa sida u weyn yahay waalidka, gaar ahaan hooyadu xaqa ay ku leedahay caruurta. nin baa u yimid nabi sal slam wuxuu ku yihi, nebi allow, rasuulka ilaahayow, man axaqu nnaasi bixusni saxaabati, cidda ugu mudan in aan la saaxiibo, aan daryeelo, aan wanaajiyo waayo? wuxuu yihi waa hooyo, hooyadaa buu ku yihi. uma man, wuxuu ninkii haddana ku celiyey, nebi allow ayaa ku xiga haddana hooyo buu haddana yihi. mar saddexaad buu ku yihi haddana uma man ayaa ku xiga, hooyo buu yihi. markii afraad buu yihi aabbo. marka xuquuqda ay labadu waa leeyihiin afar marka loo qaybiyo, 3 meelood waxaa leh muxuu ahaa aabbaha hooyadaa leh. 4 marka loo qaybiyo qayb waxaa leh aabbaha, 3 soo hadheena hooyada ayaa leh. marka in si gaara la iskaga ilaaliyo. sababtu maxaa weeyaan labadu waa lama kala fadilaya, laakiin dhibta hooyada soo gaadhay 9 bilood ayaa caloosha hooyada ayuu ku jira qofku. wuxuu cabo, wuxuu cuno halkaan buu ku helay. waxa yare cunto unbuu la qaybtamayey oo dheefa ama nafaqa ama fitamiin unbuu la qaybtamayay. waxaa u dheerayd xanuunkii iyo garaacii iyo dhalmadii iyo nuujintii iyo wixii kale oo dhan baa u dheeray. marka xaq ay hooyadu ku leedahay aabbaha uu ka wen yahay. lama odhanin aabbuhu waxba kuma laha, si maantii hore aan soo sheegaynay xuquuqda labadu waalid ay leeyihiin. marka hooyada inaan si gaara u eegno, gaar ahaana hooyadu markay weynaato oy da' noqoto, odaygu laga yaabo inuu majlisyada meelaha masjidka iska seexda suurtagal ama meelaha iska fadhiyo maqaaxiya. laakiin hooyadu markay taal daraato waxay u baahan tahay cid si gaara u ilaalisa, u daryeesha, way ka jilicsan tahay dadka kale. marka xaqa waalidku uu ka wen yahay. dadkii horena way ilaalin jireen si gaara hooyada xuquuqda ay leedahay. nin ayaa xilligii saxaabada ay noolaayeen ayaa u yimid xajka. hooyadii buu sidaa, uu xambaarsan yahay, dhulkaa kulul, yamantuu kasoo qaaday, kasoo xambaaray. wuxuu keenay muxuu ahaa maka iyo madiinuu keenay.
wuxuu ku dawaafayaa kacbada isagoo hooyadii xambaarsan. dabcan ilmo yar maaha hooyadii, waa qof weyn oo xambaarsan yahay. uu la wareegaya walaa muxuu ahaa ku dawaafayaa kacbadii. dhididkii iyo kulaylkii iyo culayskii iyo dawaafkii wuxuu dareemay inuu xaq badan uu hooyadii ku yeeshay uu abaalguday. marka ibnu cumar, cabdillaahi ibnu cumar allah ka raali ahaadee, ayuu ku arkay meeshii halkii kacbadii agteeda. wuxuu yihi ibnu cumar, ilaahay baan kuu dhaarshee, xaqii ay hooyaday igu lahayd miyaanad gudin buu yihi. wuxuu isleeyahay yamantaad ka soo xambaartay, xashkii baad keentay, waad la dawaafaysaa, sacyigii baad la xambaarsan tahay. marka wuxuu yihi may, walaa zafratin min safaraatiha. markay umuleysay dihashadii iyo exdii muxuu ahaa hooyadeed inay markay umuleysay garaac iyo kuleylkii soo gaadhay, mar keliyana maad gudin buu ku yihi, inta kale iska dhaaf. marka ibnu cumar oo dadkii culamada ah ee saxaabada ahaa ilaahay caqliga iyo cilmiga iskugu daray iyo garashada, ayaa wuxuu ninkaasi u caqli celinayaa inayna fari ku qodnayn waalidka wixii uu samayn lahaa, u samafal u samayn lahaa. marka taas waxay kutusinaysaa xaqa uu leeyahay waalidku, gaar ahaan hooyadu ay ilmaha ku leedahay. hadduu qofku u samafalo waalidka, si gaara looga waramay hooyada iyo xuquuqdeedoo la ilaaliyo. wuxuu nebigu nooga warramay calayhi salaatu wasalaam dadka wanaagsan mid ka mid a, nin reer yamaneeda isaguna ayuu nebigu kasii sheekeeyey. waa mucjiso. ninkaasi saxaabi maaha, waa nin muslima oo mukhadram baa leedaha. nebiga muu arag, laakiin xilligii nebiga sal slam ayuu noolaa oo muslim ahaa. mase soo gaadhin oo inuu nebiga arko fursad uma helin, maxaa yeelay hooyadiiba u samafalayay, uu ilaalinayay, u daryeelayay. maadaama iyada ku mashquulsanaana inuu nebiga arko umay suurto gelin, marka saxaabi ma noqonay. mukhadram baa markaa laga dhahdaa. wuxuu yihi nin baa ini iman doona, nin yamanta ka yimid oo reer yamaneeda oo aways binu caamir alqarani la yihaaho. dadkanu huways bay yidhaahiin, waa aways alqarani weeyaan. marka aways alqarani wuxuu ahaa nin reer yamaneeda oo qabiilka la yidhaaho qaran iyuu ka dhashay. waa nin hooyadii u fiicnaa, u samafalayay, oo hadduu wax ku dhaarto oo ilaahay ku dhaarto, ilaahay waxa uu siinay. hadduu yidhaaho wallaahi waxaa buu ilaahayna siini, may lama odhaninin, waa la siinayay. marka wuxuu lahaa baras buu lahaa, jidhka oo dhan baa wala caddaa. muxuu ahaa intaa haysan allah caafiyo, inta kan allah ka haye. marka xanuunkaasi dawo ma laha, jidhka oo dhan wala caddaa. samafalkii hooyadii u qabanaya daraaddeed iyo ducadeedii ayuu ilaahay kaga qaaday. in yaroo shaambada sida 100 farana oo dirhama ayaa ku hadhay oo calaamada bas. wuxuu yihi ninkaasi maadaama hooyadii u samafalayay, uu ilaahay ducadiisana aqbalayo, dadka fiifiicana yahay, ayaa yowm alqiyaamaha wuxuu shafiicad qaadayaa qolooyinka carabta ugu badan oo qurayshia tafiirtooda ay kamid yihiin. reer quraysheed iyo qolooyin fara badan oo mudar la yidhaaho, dadka in ka badan oo lamida ayuu qiyaamaha u shafiicad qaaday, uu jannada soobtiisa ku galay. dadka isaga iska dhaafay ahlu janno noqday oo qof fiican noqday, dadka ummadda intaa leeg ayuu shafiicad qaadayaa. samafalka hooyadii daraaddeed ayuu wanaagga ilaahay agtiisa iyo raaliyaasha ku helay. marka wuxuu saxaabadiisu nebigu ka leeyahay, ninkaasi haddaad aragtaan doondoona oo dembi dhaaf inuu ilaahay inii weydiiyo weydiista. u tago oo markuu yimaado ilaahay dembi dhaaf noo weydiin ka dhah. oo ayo weeyaan, waa sayidina abubakar, waa cumar, waa cusmaan, waa saxaabada xusaa keliya. marka xilliga nebiga muu iman, xilliga abubakar muu iman, xilliga cumar buu yimiday. cumar markaa duca hadalkii buu hayaa nabi sal slam uu weydiinaya. cid kastoo tahay ka timaada yamanta, ma reer qaran baa tihiin? may. marka uu iska laamay. marka la yidhaaho qaran baan yaa kan muu nagu jira, nin aweys qaran la yidhaaho, markii buu u tegey ee la arkay ninka caynkaasa isagoo geela ilaalinaya. markaa buu ku dhegdhegay, uu yihi muxuu ahaa ii ducee ilahay dembi dhaaf ii weydii. taas marka waxay kutusinaysaa ninkaasi wuxuu ku helay inuu raalli ilaahay ka noqdo, inuu u samafalo hooyadii daraaddeed. wuxuu ku helay ilaahayna raalli buu ka noqday, ducadiina waa laga aqbalaya. yowm alqiyaamana wuxuu u shafaacad qaadaya, qabaa'il dhan ayuu u shafaacad qaadaya. marka waa xaqaada waalidka in la ilaaliyo ayay marka islaamku u waajibiyey. haddii ay waalidku si xun kuu eegtana, wax badan kuma yeelaysee oo ma kuma habaaraysee, laakiin in yar xitaa hadday ku tiraaho laga yaaba inay kugu dhacdo.
waxaa jiray nin caabid ahaa oo dadkii hore ahaa la odhan jiray Jurayj waxaa nin caabudo ilaahay caabudo oo meel cidlaa ku caabudo ayuu ahaa magaalada meel ka baxsan ayuu aqal yar buul yar ku lahaa halkaa buu ilaahay ku caabudo dembiga dadku ka baxsanay qolo reer bani Israa'iila oo Yahuuda waa dad khariban waa dad xaasidiina dadka fiican bayna nacaan xumaantana way jecel yihiin marka waxay arkeen waxay yiraahdeen waa ninkani waa inuu naga fiicnaado doonaya waa inaan dhooqayn ma kaligoon ba ilaahay caabudi ma kaligoon ba nadiif ahaan ma kaligoon bila dambi ahaan anaguna dhooqadii dambiga waan laaqana waa inaan xumayno mid baasoo la joogto naagii kharibna ayaa taa aniga igu daaya ana baabiinay kan karkaarka uu idaarinayay way socotay marka isagoo meeshiisii ku caabudayay ilaahay habeen bay u tagtay inta dhar khariban soo gashatay oo muxuu ahaa iska soo diyaarisay ayay buulkiisii yaraa u soo gashay dabkii yaroo kulaalayay bay xagga kale ka fadhiisatay markuu arkay qof bini aadan oo dumar markuu arkay uu foorarsaday labadii gacmood dabka saa u dul hayaa markuu dikrigiisa uu iska wataa marka hadday naftiisu ay doonto bal qofka inay eegtana sidan uu buu yiraahdo dabka galiya markay xanuunsato gacmo xanuunsadaan ayuu yiraahdaa naftanay tan baad u adkaysan laadahay ma naarti baad u adkaysan waxaan ogtihiin naartu dabkan adduunyada joogay ee wax lagu karsanay wax gubayay 60 baa loo qaybiyaa naarti waxbad waxa ifka la keenay 9 kale waxay yaalaan aakhirada cid ilaahay cadaabayo Allah naga hayeen ayaa loo diyaariyo loo kaydinaya marka naagtii ayaa markay wax ka weyday iskaga timid nin baa u tagtay marka ari eegayo meel iska joog ay isku dhiibtay uur bay yeelatay xaaraana markay umushay baa laga yiri na wax yaale waxay ninka baasbaale waa kee sheekhiisana ma ahayna ka halka Jurayj atraahin ayaale marka baa kooxdii dambiga la soo sameysay la ogeyd qorshaha iyo shirqoolka iyo dadka oo dhan ma dhaqaaqay ninku halkiisa iska caabuday ilaahay oo iska digriya iska akhriyaya ayaa loo tago aqalkiisa yar baa la kala daadiyay waa la soo dhabbal soo si feerka iyo leedka iyo jugta iyo waxa ku dhacaya ma maleynaysi wala soo kaxay war maxaad ugu duleyseen maxaad aakhirka waxa lagu yiri gabadh baad xumaysay war ilaahu ma arag gabadh ma arag oo waliba ilmaad ka dhashay xaaraan war aw itusabu kayl ninkii ilmihi raba loo geeyo meesha fadhiya meesha jiifa markaa uu farta ku qasaa u gujaa fandurtu ku yiri man abuka aabaha waa kuma markaa ilmihi yara ilaahay baa ka hadlisiyo markaa buu yiri aabahay waa hebel ninka ariga eegay halka weeyaan ilmo yara imka dhasho hadlay balka warama markaa baan ninkii la sii daayay oo naga raalaho leeyiri dahab baan aqalkaaga yara kaaga dhisaynaa war waxay dhisinay boolka yara ay soo celiyo dibta waxay ku soo gaadhay ninka Jurayj caabudo waxa weeyaan isagoo tukanaya ayay hooyadii la hadashay Jurayjo beet Jurayjo isna salaadii ku jira masalaadu ka baxa ilaahay buu la sheekaysanaya la hadlaya hooyadii buu aqbalaa mise salaadu sii wata uu talamaya marka aakhirkii intuu salaada dhamaysanay ayuu iska sugay marka waxay tiri ilaahu nafta ka qaadin ilaa inta wajiga naagaha ceebta sameeya wajiga tusinaysi allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuha almumisat ilaahu inakayga hadilin ilaa inta naagaha xun wajigooga uu arkay ninkan waa nin dambi ka baxsado buurta wuxuu aqalka uga dhistay inuu dambiga naaga uu arag marka caadadii hooyadu cadootay way habaartay wax kale kuma habaarin xumaanha ku dhaco naar ha galmay waxay tir ilaahu wajiga naagaha xun ilaahu wajigiisa tus waa ka naagta arkada aqalkii ugu gashay intaaba looga dhigay habaar ay uga dhigtay marka waalidku gaar ahaan hooyadu waa laga maarmaan in xaqeeda la ilaaliyo way ka dabacsan tahay ka baajirsan tahay haddaad adoo muxuu ahaa gaajoonayso oo muxuu ahaa iyadna way kula gaajoon haddaad bugto way kula bugtaa adoo waxaysan oo wax cunin iyadu ma cunayso haddaad maqantahay way lagu weelaysaa haddaad intaa doonto daadaa doonto jir marka xaqa waalidka gaar ahaan hooyada in la iska ilaaliyo waa laga maarmaan gaar ahaan xilligan imika aan noolnahay haddii aad yar tahay iyo haddaad weyn tahayba waxaan markaas sii muhiim inaan ka hadalno ninku markuu weynaado u guursado isaga iyo islaantiisa iyo hooyadii dhinac bay markaa iskuma fiicno xaaskiisa iyo hooyadii iskuma fiicno marka labada mid waliba xuquuq leh in la ilaaliyo oo la oran ninka uu guursaday hadeetee hooyadiina markaa meeshooda ha tagto marka haddii hooyada la ilaalin waayo ama hal la weynaado ama hal la yaraadee meesha ciqaab baa ka soo socota alla xaqa waalidka nagarsiin gaar ahaan hooyada. Wassalaamu calaa sayyidina Maxamed. Intaa aan ku soo koobi, Allah na hasuro insha Allah.